kulan wanaagsan meel walba joogta ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay ee doorashada wadanka Turkiga iyo madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan oo mar kale loo doortay inuu noqdo madaxweynaha wadanka Turkiga 5 sano ee soo socota hawadeen door waxay taasi ka caawinaysaa in 20 sano oo uu hayay xilal kala duwan ama mar ra'iisul wasaare mar madaxweynaha uu ku hogaaminayay wadanka Turkiga inuu markan si dheeraysan doono hogaankaasi uu muddada dheer madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo ku jiray qodobkaas ayaan barnaamijkeena ku eegi doonaa meel walba joogtaan waad ku mahadsantihiin la socoshadeenna iyo waliba sida aad noola socoteen barnaamijyadan halkan soo gelinana aad la socotaan barnaamijkan waxaan ku bilaabaynaa sida aad la wada socoteen doorasho ku celisa ayaa maanta 28 bisha ay tahay loo balansanaad inay wadanka Turkiga ka dhacdo waxaana ku tartamaya laba musharax oo midna isbahaysiga mucaaradka uu ka socdo Kemal Kılıçdaroğlu uu yahay halka musharaxa kale tan uu ahaa madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan natiijada ayaa markii ay tirinta codadku bilowdeen ba sare u kacday iyadoo Rajab Tayyip Erdogan oo markiiba hogaanka doorashada la wareegay madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan ayaa la arkayay isaga oo masaajid ku sugan oo sujuud shukri la dhacay markii ay soo baxday in uu natiijada isagu in badan waliba kaga horeeyo Kemal Kılıçdaroğlu waxaa dhacday sidoo kale in madaxweynuhu sidii uu hogaanka u qabtay aysan wax isbedeli ka imanin gudiga doorashooyinka ee wadanka Turkiga ayaana daqiiqad ugu dhawaaqayay natiijooyinka goobaha kala duwan ee wadanka Turkiga ka soo baxayay iyo goob codbixinaadyada kala duwan codadka ka soo gaarayay Ahmed Yener oo ah gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee wadanka Turkiga ayaa mar walba waxa uu sheegayay natiijada doorashada goobta iyo waliba inta ay kala heleen labada dhinac madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan ayaa ugu dambeyn la shaaciyay in kastoo ay jiraan warbaahin sida Al Jazeera oo kale oo iyagu markay arkeen in natiijada codadka la tiriyay 97% ay yihiin sidoo kale tan oo Erdogan xilligaasi haystay 52.2% musharaxa kale ee la tartamayay Kemal Kılıçdaroğlu uu haystay 47.7% ay u hambalyeeyeen oo Al Jazeera waliba qaybta Carabiga ay sheegtay in uu Erdogan yahay madaxweynaha wadanka Turkiga laakiin ma ahayn natiijada rasmiga ah gudiga doorashooyinka xilligaasi ka soo baxday laakiin in badan oo kamid ah wadamada caalamka iyo Soomaalida ayaa markiiba waxay u qaateen midaas in natiijadii rasmiga ahayd sidaasi ayayna baraha bulshada ku qabsadeen iyo warbaahinta maxalliga ah in uu Erdogan guuleystay guushan ayaa ka dhigan in madaxweyne Erdogan uu sii dheeraysan doono xukunkiisa 20 sano ee Turkiga ee marna uu ahaa ra'iisul wasaaraha iminkana uu madaxweyne yahay taageerayaasha madaxweyne Erdogan ayaa isugu soo baxay hoygiisa magaalada Istanbul ayaga oo ku qaylinaya Allahu akbar madaxweynaha ayaana banaanka ugu soo baxay waxaan rajaynaynaa in wax walba ay ka wanaagsanaan doonaan sidii horeeto waxa sidaasi tiri Nisa oo ah gabar 28 jir ah oo kamid ah taageerayaasha madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan qaar kamid ah hogaamiyaasha caalamka ayaa durbaba bilaabay in ay u soo hambaleeyaan madaxweyne Erdogan madaxweynaha oo markii uu ka adkeysan waayay dibadda ugu soo baxay dadka shacabka ee wadanka Turkiga ee hoygiisa isugu soo baxay ayaa waxa uu dadweynaha wadanka Turkiga uga mahadceliyay in ay codkooda siiyaan taageerana dimuqraadiyadda iyo horumarka wadanka Turkiga isagoo sheegay in 20 sano oo wadankaasi uu xilal kala duwan ka soo qabtay waxyaabihii uu dadweynaha wadanka Turkiga u soo qabtay ay tahay waxa maanta saaciday ee natiijadan siisay inuu u mahadcelinayo ayuu sheegay dadka Turkiga ugana mahadcelinayo in ay u arkeen inuu sii wado horumarka wadanka Turkiga oo 20 sano xisbigiisu ka sameeyay waxa kale oo uu si weyn ugu mahadceliyay xisbigiisa oo uu sheegay in ay u soo xusheen inuu isagu noqdo madaxweynaha wadanka Turkiga ee 5 sano ee soo socota ayna doorashadaasi inuu musharaxiintaas iyo culayska faraha badan ay ku taageereen sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay inuu sii laba jibaari doono horumarka dhinacyada kala duwan ee uu sanadihii la soo dhaafay wadanka Turkiga ku hawadinay isagoo sheegay in uu arintaasi ka shaqeyn doono waxa uu dadweynaha wadanka Turkiga ka codsaday taageero buuxda maadaama codkoodii ay siiyeen in ay markana ku garab istaagaan si uu shaqadaasi ay u igmadeen ugu sii wado madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale waxa uu mahadceliyay muddadaasi dadkii ku soo taageeray
taageerayay shaqooyin kala duwan oo muhiim ah oo uu ka qabtay wadanka Turkiga isaga oo cadeeyay in uu sii ambaqaadi doono dhammaan xiriirada caalamiga ah ee wadamada kala duwan ee dunida uu la leeyahay waxa kale oo dadweynaha wadanka Turkiga u sheegay in ballanqaadyadii kala duwanaa ee ay sameeyeen xilligii ay ololaha doorashada ku jireen uusan waxba iska bedeli doonin kana codsanayo shacabweynaha iyo cid walba oo ay u suurto galayso inay arrimahaas iyaga ku garab istaagaan madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in midani ay tahay waxa kali ah ee astaanta u noqon kara shaqadii ay soo qabteen sanadihii la soo dhaafay iyo dadaalkii uu xisbigiisu soo galiyay wadanka Turkiga waxa kale oo dadweynaha uu la hadlayay u sheegay madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan in uu sii ambaqaadi doono taageeradaas ay siiyeen awgeed talaabooyinkii iyo shaqooyinkii kala duwanaa ee uu ka hayay magaalooyinka iyo guud ahaan wadanka Turkiga oo dhan kasta laha isaga oo sheegay in uu ka shaqeyn doono sidii lagu soo celin lahaa dhaqaalaha wadanka Turkiga dibna loogu abuuri lahaa dhaqaalaha loona hagaajin lahaa isaga oo sheegay in loo baahan yahay in dhammaan laga gudbo culeysyada kala duwan ee wadanku uu sanadihii la soo dhaafay la daala dhacay shaqadaasna waxa uu sheegay inay noqon doonto waxyaabaha ugu horeeya ee uu diiradda saari doono reer Turki waad mahadsantihiin shacabkayga waad ku mahadsantihiin inaan codkiina siiseen ixtiraamka aad siiseen baan aniguna idin hayaa mid lamida waan idin garab taaganahay sida aad ii garab istaagteen waxaana u shaqeyn doonaa sida aad ii doorateen idinka ayaana idin shaqeyn doonaa shacabkayga waxaan idin sheegayaa ballanqaadyadii aan sameynay dhammaan waan fulinaynaa waana dadaali doonaa idamka ilaahay waan shaqeyn doonaa idinka ayaana idin shaqeyn doonaa garabkiina ayaan u baahanahay sida aad haddaba noo garab istaagteen ayuu yiri madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhinacyadii la tartamay iyo waliba kuwa la tartamayay oo codeynaya taageerayay intaba ay Turkiyihiin isagoo sheegay in xilligii doorashada laga soo baxay haddana loo baahan yahay in shanta sano ee soo socota horumar ballaaran laga sameeyo wadanka Turkiga loona tafaxayto sidii shaqooyin kala duwan oo wanaagsan loo qaban lahaa muddadaasi waxa uu cadeeyay in uusan isagu waxba agran doonin isaga oo tilmaamay in uu team aad u wanaagsan oo dawladnimada iyo doorashada kala soo shaqeeyay uu lahaa lana sii shaqeyn doonaan waxa uuna sheegay isku day kasta oo wadanka Turkiga lagu soo qaaday dhinaca dooniha ka yimaade ama dhinaca kooxaha argagixisada ama reer galbeedka iyo dhan kasta oo isku daya in ay doonaan in ay Turkiga dhibaateeyaan ama waxa uusan Turkigu doonaynin oo dan u ahayn u yeeriyaan in ay guul dareysteen dadka Turkiga jecel horumarka Turkiga jecel Turkida cusub iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka Turkida casriga ah dadka raadinaya gabi ahaantoodna inay guuleysteen cid walba oo Turki ayaa maanta guuleysatay guushuna cid gooni ah oo lama jirto aniguna idinka ayaan idin shaqeyn doonaa dhinacyada kala duwan ee mucaaradka ayuu ka codsaday inay la shaqeeyaan garabna istaagaan dadka Turkiga ayuu u sheegay in xilliga ololaha doorashada waxyaabaha la sheegay aysan ka dhab ahayn nacayb abuur aysan ahayn siyaasiyiinta ee kaliya ay tahay inay dadweynaha qanciyaan midaas iyadaana ay ahayd wixii laga shaqeynayay waxa uu cadeeyay inay sii wadi doonaan midaas iyada ah ee la xiriirta horumarinta iyo waliba ka shaqeynta Turkiga oo guulo waaweyn gaara